waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo markii aanu qorshaha qaranka qoraynay arrinta tamartu udub dhaxaad bay u ahayd hayaanka dalkani uu gelayo ee horumarka uu ku samaynayo ee himilada 2060ka la jaanqaadaysa iyo ta 2063 ee Afrikada guud ay leedahay maanta marka in laabkii aanu sanadka fadhinay arrimaha ku falanqeynaynay isagoo more advanced ay hormuud ummadda u golayso aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo idinku hambalyeeynaya in aydan wixii idinku isku koobine aad ummadii oo dhan u yeedhaysaan dawladdii u yeedhaysaan competitorskin u yeedhaysaan aqoon-yahanadii u yeedhaysaan madalaha noocani waa madalaha ummadaha lagu qiimeeyo ummad ma qiimeyn kartin inaad tiraahdo isirkeedun baan eegaya halkay ka soo jeedaan ummad waxa lagu qiimeeyaa waxa ay ka sheekaysato maanta haddaynu ka sheekaysanayno oo ka doodayno national debate ama discourse aynu ka yeelanayno war arrinta korontada ee dabarka inagu xidhay saynu isaga furnaa waa horumar weyn oo hormuud ay ka tahay shirkadda hormuud aan laba goor magac isu raaciyo waxaan aad idinku boorinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaad madalahan u barataan kolkii hore ee wax soo saarka cuntada iyo arrimaha focuska la saaray waan la soconay markii fintech iyo financial technology laga hadlayay waan la soconay maantana in tamartii aad ka hadlaysaan waa arrin aanu aad iyo aad u soo dhaweynayno waxaan rabaa hal kelmad oo kala dardaarana oo hormoodna caado u ah idinku haddii aad hayaanka guud iyo hawsha sare aadaan waa lagama maarmaan inaad fursado u abuurtaan dhalinyarada soo koraysa ee hal abuurka leh si ay iyana u samaystaan shirkado yaryar waa guulaystayaasha guulaystay shirkado yaryar oo sektorka meelaha bannaan ka buuxiya biiska hoose aad baan idinku hambalyeynayaa hawshan aad haysaan xukuumadduna way idinku garab taagan tahay